ciidanka mariiniska badda nabadoonnada maamulka degmada hooyooyinka dhalinyarada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo xildhibaanada sharafta leh degmada Baargaal iyo nabadoonnada dhammaantiin siciida wax yar waxaan maanta inoo yimi oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay ciidanka aad aragteen iskama iman xoog iyo xeelad baa la soo geliyey waa u mahadcelinaynaa marka hore saraakiisha taliyaha qaybta gobolka Gardafuul booliska ugu horeeyo taliya ku-xigeenka madaxweynaha taliyaha booliska dowladda Puntland iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay tababarka ciidankan maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii lixaad ayayna soo gaareen ciidanku taliya gudaanu idin sugaynay waana runtii ku diirsanay tababarka sharafta leh ee hadda la soo siiyay saakay markaantii madoontada oo aad hortayada ka samayseen waxaan rabnaa marka taliya intii ciidanku naga maqnaa runtii ciidanka mariiniska baa joogay degmada Baargaal markaan si gaar ah uga hadalno waa lagu diirsaday shaqadii ay qabteen ciidanka mariinisku hadday xaalufka dhulka tahay badda tahay cashuurdiidka tahay amniga guud tahay dhagax tuurka iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaalaha yaryarka ah oo degmada ka dhaca iyo tuulooyinkeeda tahay ilaahay idinka waxaan rabnaa marka ciidan kale oo hadda inagu soo biiray ciidankii booliska oo aan muddo sugaynay muddana u oomanayn baa hadda inoo yimi taliya marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga taliya ku-xigeenkuba halganka weyn oo runtii mar hore iyo mar daba aad ka geysateen in amniga gobolkaani uu noqdo mid sida gobolada kaleeta sida degmooyinka kaleeta sida ummaddu ay u nooshahay in degmada tan u noolaato gobolka Gardafuulna u noolaado way idinka mahadcelinaynaa taliya waxaa noo yaal shaqooyin aad iyo aad u fara badan saraakiisha noo yimi oo runtii maxaan ku idhaahdaa saraakiishii dowladda ah oo degmo walba ka shaqayn kara iyo gobol walba waxaan ugu soo dhaweynaynaa deegaan sharaf iyo karaamo leh oo ciidan sharaf leh hore u joogay waa ciidanka BMF oo Abshir uu hogaaminayo hadda iyo Cabdi Raage iyo Mawlud aad iyo aad baan ciidanka runtii ugu mahadcelinaynaa waxa inoo yaal shaqooyin fara badan